وإبر لبدا حلبا سوماليا فرصة وعنايا أبورن سلمدا يوغندا لكن لبدا كما يسن فايديسن مركن فرصة في عواكم فيصل الكابيتان فيصل أفكار الدين تقنع فيصل وحول عيار شينا مركن شينا وقاسي ويقوشة يوغندا يا مركن كبدا عياريسا حلك يوغندا يا كبدا عياريسا أفكار الدين تقناحة ugu dambeyntii Soomaali waa iska difaacin Faisal Ahmed ayaa haysta Faisal waa kan faawul ayaa lagu galay laakiin garsoorku waxa uu leeyahay waa gacantuur waayay mar kale يوغندا يا مركن كبد اسكو ديبيسا واقعا كحتاني مركن فيصل واو قد عبد المجيد عثمان عبد المجيد دافع الكي يوغندا يا كقبصد كبداسي عبد المجيد موسن كقارن عبد المجيد وياي مركن عيارتويدا يوغندا يا كبد مركاسي باسنيان لكن كابتن كقرنك يوغندا كبد سو توري ugu dambeyntii daafaca mayalka adaga eeman ayaa iska saaraya مركن ولي واكل عيارتو إذا قرنك ودنك الصومالية وليج أيها هستا وليج وحول عيارك قحتاني واكن فيصل فرصة في عن شينا يا مركن بس قادنا يا شينا واكن لكن والله قرأتو قدام بنتي وياي مركن يوغندا واي ديبتين كبدي ويرأي كجرا حلك يوغندا والله صاتوري قولاي مصطفى أي مركان وتتكو بدي ساقا قعنتكو ديقيا هاقاك دادويناها كو دقن عالمك أي مركان ستو سبرا بلشدين اقل السعودة وعيارتان داوانا مركان يوغندا كو بدي واو باست مركان عياريان كلا مركان العيتون هذا قرنك يوغندا وياي مركان مركان أفكار الدين تقناحة قولاي مصطفى أي مركان لو تكتي الساقا قعنتو كو ديقيا مركان وياي صاحب بيال قولاي حولك قرنك ودنك يوغندا أي مركان سو تكتي عيارتي ugu dambeysay Soomaaliya Uganda dhaxmarto waxa ay tartankii 17 jirada Farxaan Duqo ayaa goolka qura ee Soomaaliya ku badisay u dhaliyay markan weerar ay ku jiraan waa fursad qaaliya sida Ali Baan ayaa iska soo saaraya afkoora dilinta ganaaxa Soomaaliya markale waa ay hortaageen xidigeeda oo meel wacan ayuu dhigay wili waa dilinta ganaaxa Uganda ayaa ciyaaraysa waa kan afka hore wili ciyaartooyda Okolo Alan Okolo waa u dhibay waa la soo dhigay laakiin wili ayaa iska saaraya Soomaaliya hila wacan ayaa heshay Soomaaliya garab fiican ayaa ka heshay Djibouti sababtoo ah dadweynaha reer Djibouti ayaa aad ugu sacabtumay xidiga xulka qaranka ee Soomaaliya markan waa kan ciyaaryahan kala marka tobanaad laakiin kubaddi fursad fiican afka hore wili وإسكت دفاع عن قرن كصومال على العياريان كوحدة أرسل شيقي كوحدة عافمات كأي قيمانيان
42 daqiiqo eber iyo eber qaybta hore ciyaarta ilxaaji guuleed magaalada Djibouti caasimadda waddanka Djibouti ayay ciyaartan ka soconaysaa saaxiibayaal agaag markan kubadii Uganda ayaa dib u furi doonta waa ay tuureen Soomaaliya gacan tuur markan sameyn doonta safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti ayaa markaas ciyaartan daawanaya oo ciyaartooyda dhiirigelinaya si la mid wafdi kala duwan oo markaas reer Djibouti ayaa daawanaya oo iyana markaa dhiirigelinayaan ciyaartooyda xulka qaranka ee Soomaaliya hagaag markan saaxiibayaal golayaha xulka qaranka waddanka Uganda ayaa markan soo shaqo gelinaya golayaha ayaa markan heesta Uganda waa iska soo tuuray lambarka 10aad ee ciyaartooyda xulka qaranka waddanka Uganda markan difaaca xulka qaranka waddanka Uganda ee kabtanku ah lambarka 16aad ayaa heesta Faisal ayaa hortaagan waa kan markan waxa ay raacanayaan xidigaha kale lambarka 16aad weerar ayuu ku jiraa ugu dambeyntiina banaanka ayuu marsiiyay wayay 2 daqiiqo ayaa ka hartay qaybtii hore ciyaarta hagaag markan waa la soo tuuray markan Uganda ayaa weerara fursad fiican ayay haystaan xulka qaranka waddanka Uganda waa la dhigay markan afka hore laakiin gool ayay Mustafa Nakuja shabaq ilaaliyaha xulka qaranka Soomaaliya libaaxa bandhiga waxaan ku jira labada kulan ee ugu dambeeyay Soomaaliya halkan ku ciyaaraysa ayaa kubadaasi gacanta ku dhigay Nakuja ayaa markan soo tuuri doona wayay markan Uganda waa ay soo madaxeeyeen Okello Alan Okello ayaa weerara waa kan Wiliij ayaa hortaagan Gaxtaani ayaa hortaagan markan Ibrahim Rasta ayaa hortaagan Alan Okello waa uu ku dagaalamaya waa nin mucjisa waa nin lugta bidix ku ciyaaro halka markaas Ibrahim Rasta oo lagu tilmaamo inuu yahay saayigi ama kubad sameeyay ugu fiicnaa ee Soomaaliya waa kubad burburiye ugu fiicnaa Soomaaliya soo mara uu ka badbaadinaya marka uu ka keenayo kubadaha wali markan Uganda afka hore dilinta ganaaxa Soomaaliya waa iska diiday Soomaaliya penalty ayaa laga dhigay Soomaaliya penalty ayaa laga dhigay Soomaaliya penalty ayaa laga dhigay markan Soomaaliya penalty ayaa markan laga dhigay gool kulaad ayaa Uganda loo dhigay gool kulaad ayay tuuran doonaan xulka qaranka waddanka Uganda Soomaaliya ayaana laga dhigay gool kulaadkaasi waagaag markan laad xora waa gool kulaad ayay tuuran doonaan xulka qaranka waddanka Uganda garsooraha reer Ethiopia ayaa markaas gool kulaad ka dhigay Soomaaliya garsooraha reer Ethiopia ayaa markaas gool kulaad ka dhigay Soomaaliya wayay markan golaaye Mustafa Nakuja ayaa ku rajaweyn inuu qabto gool kulaadkan lambarka 9aad ayaa u taagan ee Uganda lambarka 9aad ee Uganda Patrick Henry Kadu
batrik henry ayaa u taagan lambarka 9aad ee uganda ayaa u taagan goolkulaadka batrik henry uganda waa ay dhaliyeen uganda goolka koowaad uganda ayaa la timid goolka koowaad ee ciyaarta wuxuuna ahaa goolkulaad goolkulaad ayay uganda markaasi dhaliyeen kadib goolkulaad laga dhiga Soomaaliya uganda shabaqa ayay gaartay goolkulaad ayay markaasi dhaliyeen ciyaartooyda xulka qaranka waddanka uganda sheekaduna waa gool iyo eber Soomaaliya ayaa markan raadin doonta goolka barbaraha waayahay markan qaybtii hore ciyaarta ayaa soo idlaatay saaxiibayaal waxa ay ku soo idlaatay qaybtii hore ciyaarta gool iyo eber weliba goolkulaad ayay heleen xulka qaranka waddanka uganda goolkulaad ayay weliba heleen qaybtii hore ciyaarta ayaa soo idlaatay saaxiibayaal waraysiyo ayaan gudageli doonnaa mas-uuliyiinta halkan markaasi inagula sugan ayaan oraayadooda aan weydiin doonnaa insha allah
هاي نوفيري مسحنا عدي نكلا عاوي صاحي وصح عطوا عاوي معايا وعنو صوروا كوردي يا صور يصوروا يا وافهم بالله ما شفت الصور احمدوا كاميرمان قصايد يا عيسى حايا يا عيسى حايا يا عيسى حايا عيسى حايا ولاي عندي ما عيسى حايا فتح فتح ماشي كان معك وكان ليش ما كنت تشاهد؟ اسمه الأركان هذا وصول دقيقة استحكونا دولة هذه ساحة سوا قادنا راسا يسوي حي لف كده لف وايد أي سوجس اوكي ويا saaxiibayaal waxaan ku sugnaa garoonka Xaaji Guuleed oo ciyaarta xiisaha badan ee ka imaanayso waxaana markaasi marka kan ciyaarta ay maraysa gool eber oo Soomaaliya gool kulaad ayaa laga dhigay dhamaadkii qaybta hore ciyaarta waxaana markaasi ciyaartan dhexdhexaadinaysa Israa'iil u dhalatay wadanka Itoobiya oo gool kulaadkaasi ku abaalmariyay xulka qaranka wadanka Uganda waxa imika la taagan kaaliyaha xogaya xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Maxamed Cali Jabane oo kamid ah wafdiga xulka qaranka Soomaaliya ee ku sugan dalkan Djibouti jawana ka waran ciyaarta qaybteeda hore ciyaartoyda Soomaaliya sida u ciyaareen iyo rajadeenu sidee tahay bismillah markuu warashada kaga mahadcelina Astaan TV marka xigtana ciyaarta maanta aad u qurux badan tahay waxaan dareemaa farxad iyo ma sha Allah inaan natiijo keen doono hadii la yiraahdo galin hore ciyaartu haddaan saadaaliyo ama ay sida ahayd aan ka sheekeeyo waxay noqonaysaa ciyaar aad u fiican labada kooxoodba ciyaar qurxoon ay soo bandhigeen goolkulaadkana go'aanka waxaas kale dabcan garsooraha koranka ku jiro inkastoo aan dareemayno inaysan ahayn mataqaanaa goolkulaad sax ah laakiin haddana dabcan hadduu dhigay waa ku qasbanay inaan qaadanay waya ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya fursadaha ay heleen ay ka faa'iideysan waayeen ka waran waa dareemi karaa in fursado badan aan cunay laakiin waxaan rajeynayaa inay waqti badan qaadan doonto in isbeddelka cimilada fursad fiican ay noo sii doonto in isbeddelka aan kaga qayb qaadano fursada hadda aan lumin insha Allah mid dambe uga faa'iideysan doona hadii la helo rajadeena ma tahay in markaasi kulankan aan ka badan karno Uganda si kulanka markaasi dambe ee gurigooda aan ugu tageyno iyana si wacan ay u soo bandhigaan ciyaartooydu hamigaan xambaarsannahay iyo sidaan maleeynay ma sha Allah waa rajeynaynaa inaan guul gaarno goolkulaadku dabcan waa nasiib yimaado ciyaar ama gool ee ka soo shaqeeyaan ma aysan ahayn markii waa tiishar Djibouti lagu bidiyo kale marka ma la dhihi karo mataqaanaa awood ayay ku yimaadeen laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah haddii sida hadda aan ku ciyaarino aan qurxino ama aan si adkeeno in natiijo fiican gaari doono hami fiican waa ka leenahay insha Allah waya dadweynaha reer Djibouti sida garoonka u soo xaadireen oo Soomaaliya ugu sacabtumay baltaana ka waran
reer Djibouti caadiyan sida la og yahay waa dal walaalaheen ah waa dal mataqaana xiriir fiican oo nagala dhaxayo gogashan maanta aan joogno garoonkan maanta aan joogno hooygan aan joogno intuba ayaga noo dhigay waana ku mahadsan yihiin taageeraha maanta ay noo muujiyeen waa ku mahadsan yihiin dabcan waana wax dadka Soomaalinimada ah ay ka dhaxayso ma wax mataqaana hadda reer Djibouti ku cusub yihiin wanaagii walaaltinimada iyo taageerada hore u heli jirnay waan kaga mahadcelinaynaa waayahay kaaliyaha xogayaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayuu ahaa oo markaasi ka mid ah wafdiga ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya ee ku sugan garoonka markaasi Djibouti ee magaalada Djibouti ee caasimadda waddanka Djibouti waxaana markan ciyaartu ay tahay gool ever Soomaaliya ayaa lagu leeyahay goolka waxa uu ah gool kulaad oo markaasi gool kulaad laga dhigay xulka qaranka Soomaaliya ayuu ahaa goolkaasi waayahay saaxiibayaal waraysi sheekooyin kale xiiso badan intaan tabintii ku jirna ayaan idin la wadaagi doonaa dhammaan dadku waa wada Soomaaliyeeysan yihiin caawa oo dhammaan calankii Soomaaliya wataan waa loo saacabtumaya ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya waxa ay sameynayaan markaasi hal ku dhigay caan oo Soomaalidu marka ay leedahay garoonka Xaaji Guuleedna waxa uu la mid noqday caawa istaadi Muqdisho oo taageerayaal fara badan oo Soomaaliya markaasi ay ku sugan yihiin waayahay dib ayaan isku soo laaban doonaa insha Allah
وياي صاحب يال وياي صاحب يال قيبت لواد عيارتا يا دب بلاوتي سومالي سو كل xulka qaranka wadanka Djibouti ciyaarta ka dhacaysa Soomaaliya Uganda u dhaxaysa Soomaaliya Uganda ciyaarta u dhaxaysa ayaa markan dib u bilaawatay Golaye Mustafa ayaa markan soo shaqo gelin doona mid ka mid ah xidiga xulka qaranka wadanka Uganda ayaa jiifa kooxda caafimaadka ayaana loogu yeerayaa si uu la tacaalaan xaaladda caafimaad ee ciyaaryahankaasi ciyaartu waa gool eber waxaana markaas Soomaaliya goolka laga dhaliyay kadib markii gool kulaad loo dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo Patrick Henry ayaa markaasi ka dhaliyay gool kulaadkii loo dhigay xulka qaranka wadanka Uganda wayahay markan Astaan Sports ayaa si toos ciyaaraan aad uga la socotaan oo iminkadan baad si toos aad uga daawan kartaan banaanka ayaa u baxday markan dhanka Soomaaliya ayaa loo wadi doonaa wayahay markan Soomaaliya ayaa faawul loo dhigay iyaga tuuran doonaan faawulkaasi xulka qaranka ee Soomaaliya ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa tuuran doonaan bedel ayay sameeyeen Uganda ninkii goolka dhaliyay ayaa la bedelay markan ciyaaryahanka lambarka 13 ee Uganda waa u dhiibay kubadii waa counter attack ay Uganda sameynayaan وليد ayaa ka difaacay markan Soomaaliya ayaa haysta kubadii dhaxda ayaa la soo dhigay Ibrahim Rasta Eeman ayaa soo gadiyay Shiiqay waa uu qawan kari waaye banaanka ayaa u baxdo kubadaasi
hagaag ciyaartooyda xulka qaranka ee Uganda ayaa markan kubadda iska soo saaraya Uganda waa ay tuureen banaanka ay uga baxday waagaag saaxiibayaal markan Soomaaliya ayaa iska soo saartay kubaddaasi kabtanka Uganda ayaa soo madaxeeyay markale qad ka dhaxaya taal xulka qaranka wadanka Uganda daafac xulka qaranka wadanka Uganda ayaa haysta markan waa uu gadiyay kubaddaasi waayahay markan xidigaha Soomaaliya waa iska soo saareen Faisal ayaa haysta markan kubadda Faisal Ahmed waa kan markale waa kan Gaxtaani sida Ali Baana kubaddi waa u tuuray waayahay markan weerar ayay ku jiraan xulka qaranka wadanka Uganda lambarka 12aad ee Uganda isaga haysta madax ayuu isaga soo saaray sida Ali Baana waayahay markan weerar ayay ku jiraan Faisal Ahmed Abdimajid Cismaan ayaa offside galay hagaag markan Uganda ayaa ciyaaraysa markan Uganda fursad fiican golaaye Mustafa Lukuja ayaa badbaadiyay fursaddaasi qaaliga Mustafa ayaa badbaadiyay markan Faisal Ahmed waa kan Abdimajid Cismaan Abdimajid ayaa haysta Ibrahim Rasta ayuu dhiibay kubaddi Gaxtaani ayaa markan ciyaaraya Gaxtaani waa kan waa u tuuray ugu dambeyntii kubaddaasi banaanka ay uga baxday Soomaaliya macalinka xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa bedel sameyn doona Maxamuud Cabdinuur Maama iyo sidoo kale Farxaan Duqow ayaa soo gali doonaan Maxamuud Cabdinuur Maama iyo Farxaan Duqow ayaa soo gali doonaan sida Ali Baana Shiiqay markan waa kan Shiiqay waa u baasay Shiiqay fursad fiican ayay haystaan Soomaaliya waa kan Faisal Ahmed Faisal markan Uganda waa iska saareen waa corner kick hagaag saaxiibayaal Farxaan Duqo ayaa soo galay
cabdimajid cismaan ayaa markaasi lagu beddelay farxaan markan fursad fiican soomaaliya farxaan duqow waa xidigii goolka ka dhaliyey uganda beddel ayuu ku soo galay iminka maxamuud cabdinuur meema ayaa taagan okeelo wuxuu la ciyaaray saaxiibkii markan faysal xasan xaashi faawul ayaa laga dhigay xulka qaranka ee waddanka uganda soomaaliya ayaa loo dhigay beddel ayaa markan la samaynayaa maxamuud cabdinuur meema ayaa soo gelaya faysal xasan xaashi ayaa baxay waayahay markan shiiqii dhaxda ayuu geey markan faysal axmed ayaa dhaxda ku jira waa kan mar kale uganda ayaa markan haysata kubadda soomaaliya markan uganda waa iska soo saartay waayahay markan uganda ciyaartooyda xulka qaranka waddanka uganda ayaa ciyaarayaan goosha ayaa la dhigi doonaa waa hagaag sheekadu waa gool iyo werweli saaxiibayaal soomaaliya ayaa goolka lagu leeyahay 55 daqiiqa ayay soconaysaa meema ayaa la ciyaaray saaxiibkii gaxtaani ayaa haysta markan kubaddii waa la gediyey farxaan duqow farxaan ayaa haysta weerara farxaan waa kan farxaan duqow afka hore dilinta ganaaxa weli waa kan soomaaliya gaxtaani ayaa markan faysal wiliij ayuu la ciyaaray wiliij waxuu la ciyaaray farxaan faysal ayaa markan haya wiliij mar kale dhaxda ayay taal soomaaliya weli gaxtaani waxuu la soo ciyaaray saaxiibkii meema waa kan markan waa la soo tuuray offside ayaa laga dhigaa ma garab dhaaf uganda ayaa beddel samayn doonaan lambarka 8 ayaa soo geli doona xulka qaranka waddanka uganda waayahay markan golayaha xulka qaranka waddanka uganda ayaa ciyaaraya meel wacan ayuu dhigay markan meema ayaa raacaya gaxtaan ayaa sidoo kale raacaya waagaag beddel ayay samaynayaan uganda markan meema ayaa faawul laga dhigay uganda ayaana tuuran doonaan lambarkii 8 ee xulka qaranka waddanka uganda ayaa soo geli doono waxaa baxay okeelo ciyaaryahanka la yidhaahdo waa ciyaaryahanka markaasi lagu magacaabo alan kiyawa ayaa baxaya waxaana soo gelaya kigamu shaafici kuji isaga ciyaaraya markan kigamu shaafici saaxiibkii ayuu la ciyaaray okeelo waa kan markan dib u celiyey lambarka 6 ee xulka qaranka waddanka uganda markan xulka uganda ayaa ciyaaray sida cali baan ayaa ka soo saaray kubaddaasi markan uganda waa kan
farxaan duqo ayaa haysta kubaddii farxaan waa kan farxaan ayaa weerara markan meel wacan ayaa la dhigay faysal oo may shiine ma gaarin shiine waa shiine ma uusan gaarin kubaddaasi markan xulka qaranka waddanka Uganda waa iska soo tuureen way dhiibteen markan fursad fiican ayay haystaan afka hore oo offside ayaa laga dhigay offside ama garab dhaaf 59 daqiiqo وياي مركن واسك سو سارن ciyaartooyda xulka qaranka ee Soomaaliya waliija ayaa markan madaxeeyay banaanka ay u baxdo ugu dambeyntii gacantood ay sameyn doonaan agaag markan weerar ayay ku jiraan xulka qaranka waddanka Uganda fursad qaaliya afku goosha ayay marta maysan gaarin banaanka ayay ka marta markan xulka qaranka waddanka Uganda goolay Mustafa ayaa soo tuuran doona وياي مركن وليج ayaa haysta kubadii wuxuu la ciyaaray farxaan duqow farxaan waa kan farxaan ayaa weerara saaxiibka ayuu dhibay faysal waa uu soo gadiyay kubadii markan shiiqay ayaa haya waa uu soo tuuray shiiqay Soomaaliya waa laga soo saaray Uganda ayaa haystaan xulka qaranka waddanka Uganda kubadii iyaga ciyaaraya lambarka 10aad ee Uganda waa uu gadiyay kubadda markan وياي فاول ayaa laga dhigay ciyaartooyda xulka qaranka waddanka Uganda Soomaaliya ayaa loo dhigay faawulkaasi sheekadu wali waa gool eber 61 daqiiqo ayay soconaysaa Soomaaliya waxay ku rajaweyntaa inay keento dhowr fursadood ayay heleen ciyaartooyda xulka qaranka ee Soomaaliya laakiin ma aysan u suura galin markan weerar farxaan duqow wali farxaan ayaa haysta farxaan waa laga soo saaray waa gacan tuur markan وياي مركن ماما way soo saareen xulka qaranka waddanka Uganda markan counter attack ayay sameynayaan waa 2-2 counter attack Uganda counter attack ayay sameynaysaa wali waa kan dilinta ganaaxa markan Uganda Mustafa Nakuja goolaya Mustafa ayaa saaray goolaya Mustafa ayaa markale libaax ka noqdo kubaddaas oo iska saaray markan Soomaaliya ayaa la wareegtay kubadii golaya xulka qaranka Soomaaliya Mustafa Nakuja ayaa markale kubaddaasi libaax ka noqdo iska saaray dhowr fursadood ayuu Nakuja saaray واجا أجلاد حراية تورن دونان قوليا يا جيف مركن كوحدة عافمات كلوغو يريا
goolayaha ayaa jiifa kooxda caafimaadka ayaana loogu yeerayaa markan daa'uud tubaal ayuu kiciyey tababarow uganda ayaa la timid goolkii labaad bilizion ayaa laga dhigi golaayo mustafa nakuuja sheekadu waa 2 gool iyo eber xulka qaranka Soomaaliya ayaa goolkii labaad laga dhaliyay mustafa nakuuja ayaa markaasi laga dhaliyay bilizion ama laad xara وياي ولا بقول يبر وياي تاغرياش ايا ku qeylnay magac Atoosh عبدالعزيز محمد عطوش ayaa taageerayaasha dalbanayaan Atoosh ayaa loo istaagay oo markaa taageerayaashu u sacabtumayaan hagaag markan ciyaartooyda Uganda ayaa raadinayaan gool saddexaad goolahay Mustafa ayaa la degay kubadaasi Mustafa Nakuuja ayaa markaasi jiifa Atoosh ayaa markaa u kacin magaca Atoosh ayaa ku qeylinayaan taageerayaasha kooxda xulka qaranka Soomaaliya وياي قاعتان ايو بدنتا ان لبدل دون ايدو مركاسي عبدالعزيز محمد عطوش وبدل كو ايمان دونو لمبركا طبان هذه كوحدة دكدي حولك قرنك الصوماليا كابتنك قرنك الصوماليا ايا بدل كسو قلي دونو ايضو عيارتو لبا قولي ايبر مركاسي اتاي كوحدة يوغاندا ايا وحاكد حموقنا معاني كوري حولك قرنك الصوماليا امبازي جارلس لفستونغو ayaa markaasi ka dhax muuqanaya oo markaa toobaraha labaad ee xulka qaranka wadanka Uganda wayay saaxiibayaal Cabdilcasiis Maxamed Atoosh ayaa markan bedel ku soo gali doona oo taagan markaasi qaybta keedka Soomaaliya markan waa ciyaareen gaxtaan ayaa haysta kubadii waxa uu la ciyaaray saaxiibkii faawul ayaa laga dhigay xulka qaranka wadanka ee Uganda Cabdilcasiis Maxamed Atoosh ayaa markaasi bedel ku soo galaya oo taageerayaashu magaciisu ay ku qeylinayaan kana dalbadeen macalinka kabtanka rasmiga ah qaranka Soomaaliya markan gacantuur ay sameeyaan ciyaartooyda way iska soo saareen xulka qaranka wadanka Uganda markan Cabdilcasiis Atoosh ayaa soo galay oo bedelkiisu taagan yahay gaxtaani Xaaji Baano ayaana bixi doona sida Cali Baano waxa uu soo gadiyay Shiiqay ayaa ay markan Shiiqay waa ordhiga markan ciyaaryahanka lagu magacaabo gaxtaani ayaa markan la bedelaya
catoosh ayaa soo gelaya oo garoonka dhan markaasi looga saaxbinaya catoosh ayaa calaamadda kabtanimo ee xulka qaranka xidhan doona oo iminka faysal u xidhan yahay iyadoo faysalna u furi doono waa hagaag markan weerar ayay ku jiraan xulka qaranka waddanka yuganda markan yuganda fursad fiican soomaaliya waa iska difaacday cabdicasiis catoosh ayuu kabtanka u dhiibay cabdicasiis catoosh ayaa xirtay markan calaamadda kabtanimo ee qaranka soomaaliya kadib markii beddelu ku soo galay waa yahay markan waa kan fursad fiican shiine afka hore dilinta ganaaxa shiine weli isaga haysta shiine yes penalty ayaa loo dhigay soomaaliya no waa la diiday markaasi shiine ayaa fursad qaali yeelay waa yahay markan xulka yuganda ayaa ciyaarayaan kubadda markaasi joogga hoosaa lambarka labaad ayaana markaasi waxaan u qaybinayaa waa yahay weerar ayay ku jiraan markan yuganda afka hore dilinta ganaaxa markan waa iska soo saareen ciyaartooyda xulka qaranka ee soomaaliya hagaag markan waa yahay soomaaliya markan kontrataag ayay samaynayaan kontrataag ayay markan wadaan waa kan shiine meel wacan soomaaliya oo golayaha xulka qaranka yuganda ayaa kaga hormara kubaddaasi farxaan duqo ayaa markaasi si cajiib u ciyaaraya inkastoo xulka 2 gool lagu leeyahay hagaag markan yuganda ayaa weerara xulka yuganda ayaa weerara golaaye mustafa nakuuja ayaa u tagtay nakuuja waxa uu soo gadiyey saaxiibkii shiiqey markan catoosh ayuu u dhiibay catoosh ayaa haysta kubadda catoosh waa kan shiine ayuu dhiibay shiine mar kale shiiqey catoosh ayaa haysta markan meel wacan ayaa la siiyey shiine waa kan markan shiine meel wacan ayuu dhigay afka hore dilinta ganaaxa yuganda ayaa iska saartay markan catoosh waa kan cabdicasiis maxamed catoosh waa laga reebay kubaddii dhexbixiskaa uu samaynayey waa yahay markan gol ayaa qaranka waddanka yuganda danka soomaaliya ayaa loo wadi doonaa gacantuur markan eeman ayaa markaasi iska saaray waa lisla boodaya yuganda ayaa madaxeysay dib ayay u furaan ciyaartooyda xulka qaranka waddanka yuganda hagaag markan waa la soo shaqogeliyey kubaddii golaaye mustafa nakuuja ayaa u tagtay golaaye mustafa waxa uu dhigay eeman ayaa la ciyaaray catoosh waxa uu dhiibay saaxiibkii ibraahim ayaa la ciyaaray shiiqey markan waa kan meel wacan ayuu dhigay weerar ayuu ku jiraa faysal meel kan bannaankaa la soo dhigay laakiin ugu dambayntii eeman kubaddii uu soo tuuray waxaa gacanta ku dhigay golaayaa markan yuganda ayaa weerara eeman ayaa kubaddaasi kaga hormaray oo ugu dambayntiina faawul ayaa laga dhigay xulka qaranka waddanka yuganda eeman ayaana lagu galay faawulkaasi waagaag saaxiibayaal
markan waa kan ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya Shiine farxaan duqo ayaa raadsanaya kubaddaasi golayaha xulka qaranka waddanka Uganda ayaa waa u soo tuuray waa ay ka baxday markan dhanka Soomaaliya ayaa tuuran doonaan gacan tuur dhanka Uganda ayaa loo wadayaa markan dhaxda ayay taal Soomaaliya xulka Uganda ayaa markan haysta hagaag markan ciyaartooyda xulka Uganda ayaa si wacan u ciyaaraya oo isku dhidhiibay kubadda way qaldeen markan waxa haysta Maxamuud Cabdinuur Meema waxa soo ciyaaray Catoosh markan saaxiibkii ayuu ku xiray markale Catoosh waa kan Catoosh ayaa qaybinaya kubadda wala soo gadii markan Soomaaliya markale iyada haysata waa kan markan si wacan ayuu u ciyaaray waa kan Shiiqay markan cross ayuu keenay afka hore dilinta ganaaxa waa iska soo saareen Wiliij ayaa haysta Wiliij no Cabdi Wiliij waa uu gamay laakiin qaybta sare ayay ka martay waayay markan waqti yar oo biicaba ayay markaasi qaadanayaan waqti yar oo biicaba ayay qaadan doonaan iyadoo markaa cimiladu ay tahay mid aad u kulul ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya ayuu uga faa'iideysan doonaa inuu markaasi u canaanto iyadoo markaasi macalinka xulka qaranka Soomaaliya uga faa'iideysanay inuu canaanto ciyaartooydiisa hagaag saaxiibayaal hagaag saaxiibayaal marka kani waa la soo laabtay macalinka xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa markaasi aad ugu qaylinaya ciyaartooydiisa toddobaatan daqiiqo ayay ciyaartu maraysaa toddobaatan iyo toddoba daqiiqo waa 2 gool iyo eber Soomaaliya ayaa lagu leeyahay Uganda ayaa iskala goolashaasi garoonkuna waxa uu yahay mid markaasi aad u camiran iyadoo taageerayaasha reer Djibouti ay u sacabtumayaan xidigaha xulka qaranka ee Soomaaliya hagaag markan Uganda ayaa ciyaaraysa xidigaha xulka qaranka Uganda ayaa kubadda markaasi tikitaaka loo yaqaan ciyaaraya counter attack ayay sameynayaan markan Uganda counter attack ayay sameynayaan waa dilinta ganaaxa lambarka 10aad markan si wacan ayuu ciyaaray qaybta sare marka banaanka ayay ka martay qaybta banaanka ayay ka martay Catoosh ayaa markan la ciyaaray Shiiqay kubaddi waa u tuuray daafac xulka qaranka waddanka Uganda gool ayay markan u tagtay markan
gol ayuu u furtay markan daafaca xulka qaranka waddanka Uganda Uganda ayaa marka la ciyaaraysa wiliij ayaa dhaxda u galay kubaddaasi faawul ayaa laga dhigay xulka qaranka waddanka Uganda Soomaaliya waa ciyaareen markan Cabdicasiis Maxamed Catoosh ayaa lugta loo galiyay maal wacan ayuu dhigay waa fursad qaaliya Faysal markan waxa uu la soo ciyaaray saaxiibkii waa kan markan wiliij waa Farxaan waa uu soo korosay markan gol ayaa xulka qaranka waddanka Uganda markan fursad fiican ayuu haystaa weerarka xulka qaranka waddanka Uganda ayaa weerara wiliij ayaa ka soo reebay Cabdiweli wiliij ayaa ka soo reebay faawul ayaa laga dhigay Catoosh markan Cabdicasiis Maxamed Catoosh waa kan Farxaan Catoosh mar kale saaxiibkii ayuu la ciyaaray wiliij ayaa haysta wiliij markan Cabdiweli wiliij karoos ayuu keenay Uganda waa iska soo saareen xulka Uganda markan ciyaaraya markan weerar ayuu ku jiraan xulka Uganda weli waa ka Uganda fursad fiican ayay haystaan waa kan lambarka 12aad ee Uganda bannaanka ayay ka martay goosha ayaa la dhigi doonaa agaak sheekadu waa 2 gool eber Soomaaliya ayaa lagu leeyahay 81 daqiiqo Uganda ayaa markaasi ku leh mid waxa uu gool kulaad midna waxa uu bilision ama laad xora agaag markan way soo tuuran ciyaartooyda xulka qaranka ee Soomaaliya Uganda mar kale iyaga haysta kubadii weli waa kan xulka Uganda ayaa ciyaaraya sida Ali Baan ayaa dhaxdu galay sida Ali Baan ayaa dhaxdu galay kubadaasi faawul ayana markaasi dhigeen هاي وياي مركن مركن weerar ayuu ku jiraa xulka Uganda
afka hore dilinta ganaaxa Uganda banaanka ay markaas dhigeen wali dilinta ganaaxa Okela ayaa markan haya waa kan Mustafa Nakuja Soomaaliya goolkii saddexaad ayaa laga dhaliyay waa 3 gool iyo waliba eber oo xulka qaranka Soomaaliya laga dhalinayo gool ayuu markaas yiri garsooru iyadoo Mustafa Nakuja gacanta markaas laga shaaftay ويا كوحدة عافماتك أيو يريا قول أيو مركز سيري قرصوركو واسدح قول يبر سديتني أفر دقايا شاكل صعطا lambarka 7 ayaa soo gal lambarka 6 ayaana la bedelay agaag markan Faisal Ahmed ayaa haysta meel wacan ayaa loo dhigay Shiine isaga haysta markan Shiine waa kan Faisal waa laga badbaadiyay waayay shan daqiiqo ayaa ciyaarta kaarta waa 3 gool iyo eber markan waa kan Meema ayaa la ciyaaray saaxiibkii mar kale Meema fursad qaali afka hore Meema yes Maxamuud Cabdinuur Meema ayaa dhalinaya gool Farxaan ayaa mar kale ka dhaliyay gool xulka qaranka wadanka Uganda Farxaan Duqo ayaa ka dhaliyay gool kale oo ka soo shaqeeyay Meema Farxaan Duqo ayaa gool kale ka dhaliyay Uganda وانا جول كيسي لبادو كداليو 3 جول iyo gool ay sheekadu noqotay ciyaartuna waa dhamaad waayay markan Cabdi Ciise ayaa ka qaatay kubadii Faisal Ahmed waa kan saaxiibka ayuu la ciyaaray weerar ay ku jiraan Shiine waa laga qaatay kubadda waayay markan Uganda ayaa weerara waayay markan waa kan fursad qaaliya waa laga reebtay Uganda goolkii afraad ay raadinayeen laakiin waxa ka didi sida Cali Baana waliij ayuu la ciyaaray markan waa soo tuuray markan waliij Farxaan Duqo ayaa weerara laakiin ugu dambeyntii waa looga hormaray Soomaaliya waa kan markan waa laga qaatay Uganda weerara Uganda ayaa markan haysata kubadda xulka Uganda waa ay ciyaareen goolay Mustafa Nakuja ayaa gacanta ku dhigay markan wala soo tuuro kubadii waa kan markan Faisal waa ay ka baxday
markan Uganda ayaa ciyaaraysa Uganda markan weerar ay ku jiraan xulka Uganda fursad qaali ah afka hore dilinta ganaaxa Uganda waa kan golay Mustafa Nakuja ay markaas gacanta ku dhigay Abdulaziz Maxamed Atoosh meel waxan ayuu dhigay Ibrahim ayaa laga qaatay agaag markan kabtanka xulka qaranka wadanka Uganda dib ayuu u furay Okello ayaa haysta markan Farxaan Duqo markan waa kan Eeman ayaa ku dagaalama kubadda garsooraha reer Itoobiya ayaa markaas ku wada xeer jajab Farxaan Duqo ayaa haysta markan waa kan fursad fiican Soomaaliya wali waa kan afka hore wali Soomaaliya gool ayaa xulka qaranka wadanka Uganda ayaa gacanta ku dhigay waayay markan واركان فرصة قالي أيه يستحول كقرن كودنكا يوغندا لكن سي علي بانا أيه مركز كبدا كبد بادي أيمن أيه مركز كبد بادي إبراهيم رستا عبدالعزيز محمد عطوش وكان شيقي مركن إبراهيم أيول عياري وكان فيصل أحمد شيقي أيودي مركن شيقي أيه يسو كبدي شيقي وحاودي صاحبكي فاول أيه لغا ديغا يوغندا عبدالعزيز محمد عطوش golaaya xulka qaranka Uganda ayaa soo shaqo galin doona 3 daqiiqo lagu diray ayaa markaas waxa socota laba kamid ah baxday marka shida ayaa isku kubaddi waa soo turo golaaya Uganda gacanta ku dhigay markan waa kan xulka qaranka wadanka Uganda banaanka la soo dhigay Mustafa Nakuja ayaa badbaadiyay offside ayaana laga dhigay agaag markan Uganda ayaa markan weerar Eeman ayaa ka qaatay Eeman waa u dhigay Farxaan Duqo ayaa weerar markan Farxaan ayaa weerar ku jira
waagaag cabdiciis maxamed catoosh sagaashan iyo afar daqiiqa ayay sheekadu sii maraysaa seerigoo keliya ayaa dhiman golaayo mustafa ayaana sidoo kaleeta isna markaasi dhutinaya cabdiciis catoosh ayaa u gediyey saaxiibkii farxaan duqo waa kan markan farxaan ayaa haysta farxaan waa kan waa laga qaatay farxaan yuganda ayaa markan weerara waa laga saara kubaddii soomaaliya ayaa dhankeeda weerara markan soomaaliya waa tan weerar ayay ku jiraan fursad fiican afka hore dilinta ganaaxa ciyaartina waa ay dhammaatay saaxiibayaal soomaaliya 3 gool iyo eber ayaa markaasi looga adkaaday kulanka hore ciyaartii ka dhacday dalka jabuuti hal gool ka mida gool kulaad ayuu ahaa halka markaasi 2 gool kalena caadi ay u dhaliyaan xulka qaranka waddanka Uganda tabinteennina saaxiibayaal waa naga intaa ee aad kala socoteen Astaan Sports nabadgelyo